qodobka labaad ee kale runtii waxaan la kulmay iyaguna ku jirtay kulankayga ama ballantaba mashruuca maamul dejinta oo runtii aad nooga caawiyay Soomaaliland mashruucaas oo soo socday ilaa 2008 iminkana ka shaqeeyay 8 degmo oo Soomaaliland balaankana ay ku jirtay sanadkan in lagu daro maxaa haydo 2 degmo oo kale runtii taana aad baan uga wada hadalnay shanta mashruuc waxaana lacagtooda bixiya qaaran bixiyaasha caalamka shantan hay'adood soo sheegana ay runtii iyagu ay kuwa loo soo maro ama dardargaliya marka mashruucaas ay helaan kharashaadkii loogu talagalay runtii shirkaasi waxa ahayd inuu dhaco bishii sanadkan soo dhaafna bishii 12aad nasiib darro ma dhicin laakiin bishan ayaan ku rajaynahay dhamaadkeeda insha Allah ugu dambeyn inuu dhaco iyaguna Nairobi way ka iman doonaan waxaana loo soo magacaabay iminka shanta mashruuc ee UN-ta ah Paul Simkin la yiraahdo runtii Ingiriisa runtii aadna uga soo dhaadhicay qadiyadda Soomaaliland iyo waxyaabahan u baahan in dardargelin loo geliyo mashruucan balaarintiisa maadaama waxaan la yiraahdo government strategy expansion oo runtii documentka xukuumadda qortay oo laguna bilaabay 2015 ilaa 2017 runtii mashruucaas mashruuc soconaya oo noqonayo taana runtii aan nari maadaama iyagu ay soo food saartay sida ay sheegeen lacagihii ka heli jireen caalamka shanta hay'adood UN-ka kamida ay doonayaan marka inay sameeyaan reduction ama hoos u dhigis mashaariicdii ay fulin lahaayeen taana runtii aad baan uga biyadiidnay waxa aan suurooban inay tahay waan u sheegnay marka runtii waxaan jecelnahay iminka iyaga dib ugu noqdeen qorooyinkii lacagta siinayay inay runtii nagu soo warceliyaan waxa ay tusaale ahaan igu soo qaateen waxay sanadkii hore waxaan dalbanay 34 milyan in la siiyo Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa aan helnay waxa 20 milyan marka mar walba lacagta aan dalbanno ma helno laakiin waan isku dayeynaa wixii aan go'aankii aan Soomaaliland la gaarnay ama heshiiskan la gaarnay inaanan burin waana runtii ku tala jiraan waxaan jecelnahay haddii xitaa nagu kalifayso inaan aniga wasiirka dakhligu aan dib ugu noqono Nairobi haddii la harsidee arrimahan ku heshiinaan runtii aanan iyagu noo soo sameyn waxa iyagu soo gooyeen xaqooda laakiin balan bay qaadeen weegan in draft soo dirayaan balaankooda sidoo yahay taasina ma aha kama dambeys oo wax la eegi karo dibna loogu noqon karayo haddii la yiraahdo marka runtii rajo wanaagsan baa ahayd waana jecelnahay insha Allah inaan runtii balamaha aan soo galnay iyo qudhooda sida noo sheegay inaan kamera lahayn haddii la yiraahdo dhawaan wad mahadsantiin thank you